Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumanay ahaayeen dilkana maanta lagu wada furiyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cishaa dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay iyagoo ka yimi ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggeena dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya warbaahintu meesha may joogin lagu qisaasay maxamed Allah naxariisteen maxaa cadeynaya baraha bulshada hadallo kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska Caysha magaceeda Allah naxariisteen bal maxaa cadeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga Ilyas ahaan in nimankii goobta la geeyay dilka lagu fiiyay ay yihiin nimankii Caysha Allah naxariisteen dilay nimankii Caysha dilay waa wada qaanay daris baan ahayn waan wada hadalnay xataa way saafinay afis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiraan baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba adigu joog ma hel meesha lagu joog waana hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cabdaymo iyo awl waxa jiray in isaga iyo walaalkiisu la yiri DNA iska mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalo DNA ga isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa lacaankiisi baa ku jira shaawadiisi baa ku jirta dhiigiisi baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta maadiga fuliyay ehelkaaga qoyskaaga misi dawladda ayaa u bandhigtay nimankaas dawladda ayaa qisaasta annaga fushanay dawladdu waxay tiri fushada la yiri sharciga islaam weeyaan annaga fushanay waxay ugu dambeyn barnaamijkan iyo qaabka uu dhacay dhinaca dawladda iyo aragtida dareenka ku aadan ugu dambeyn dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay Soomaali weyn waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caashay Ilyas aadan ka galay waa la togtay laba ninna waa dambeeyaa oo 10 cisho ayuu xirnaanaya haddii ay noqoto in ninkaasi ay laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go'aankeeda gaadho adiga Ilyas ahaan qorshuhu ma kugu jiraa ninkaas inaad cafisid haddii kiiskaas lagu helo oo aad muddo dhow ka qaadatid ama aad qisaasatid baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal yimaadana waa arkaynaa laakiin 10 insha Allah dib waan xiran yahay fariin maxaa uga diraysaa guud ahaan dadka ku dhageysanaya oo telefishinada ku daawanaya adigoo si faahfaahsan uga hadlaya arrintan waxay ahayd arrin muxuu ahaayey ummadda oo dhan ay sugaysay maantana aan filayno in ay noqon doonto lagu qanco aysan dhici doonin gabar dambe oo muxuu ahaayey ay dhalinyarada ay falwacaas kula kacaan marka guud ahaan adigu soo xoorinaya Ilyas kaaga mahad celinaynaa bal guud ahaan dadka waxa u cabirtaa kiiskan sidoo ahaa iyo in maxaa laga baran karaa kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan waana la badbaadayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidgood maxkamadda